madaxnimada macnaheedu waxa ay tahay waa inaad maya iyo haa dhihi kartid waa inaad go'aan adag gaari kartid waa inaadan kursigaada ilaashan waa inaad dalka khatar u gali kartid xataa haddii kalifaysa inaad kursigaada ku weysid madaxnimadu waa qora isu dhiib meel inaad geysid waayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا فعلو أنو مقع درني مدحوينها قرن كي سو سعدا مدن حسن علي خيري waxaan faalada ku bilaabaynaa taariikh nololeedka musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre 15 bishii Abriil sanadkii 1968 ayuu musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre ku dhashay degmada caanka ah ee Ceelbuur kuna taala gobolka Galgaduud waa degmadii fanaanka weyn ee caanka ah Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi oo lahaa Ceelbuur ku yaalay ceenkeedii leedahay haatana aan bal eegno dhanka waxbarashadiisii musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre wuxuu dugsiga hoose dhexe kaga qalin jabiyay degmada Ceelbuur halka dugsiga sarena uu kaga qalin jabiyay iskuulka Cismaan Geediraage oo ku yaala caasimadda dalka ee Muqdisho musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre markuu ka baxay dugsiga sare wuxuu gutay waajibkiisii shaqada qaranka waxa uuna ka mid noqday ciidanka booliska ee Soomaaliyeed wuxuu ka soo shaqeeyay saldhigyada degmooyinka Marka iyo Hodan 1989 ayuu musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre u wareegay qaaradda Yurub gaar ahaan dalka Norway wuxuu 1998 ka qalin jabiyay jaamacadda Oslo ama University of Oslo wuxuuna ku bartay ama ka bartay cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha economics and political science musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre wuxuu 2001 shahaadada darajada labaad ee masters ka qaatay jaamacadda Harriet Watt University qaybteeda Edinburgh ee dalka Scotland wuxuuna bartay cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga Masters of Business Administration MBA isagoo si gaar ah u takhasusay maadooyinka maalgashiga la shaqayntii hay'adda qaxootiga ee NRC sanadkii 2002 ayuu musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre ku laabtay dalka Norway wuxuuna ka shaqo bilaabay hay'adda dalkaas u qaabilsan qaxootiga ee loo yaqaano Norwegian Refugee Council NRC wuxuuna ka mid noqday saraakiishada sarsare sanadkii 2006 ayuu musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre noqday u qaabilsan hay'adda NRC ee geeska Afrika oo idil kamid noqoshadii madaxda sare ee Soma Oil and Gas musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre ayaa shirkadda Soma Oil and Gas ka shaqo bilaabay markii la aasaasay sanadkii 2013 wuxuuna noqday agaasimaha fulinta ee u qaabilsan qaaradda Afrika oo idil sida lagu sheegay website-ka shirkadda 23 bishii Febraayo sanadkii 2017 shirkadda Soma Oil and Gas ayaa boggeeda internetka ku shaacisay in musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre iska casilay xilka agaasimaha fulinta shirkadda ee qaaradda Afrika qabashadii xilka ra'iisul wasaaraha qaranka ee Soomaaliya mudane xasan cali khayre wuxuu nasiib u helay inuu noqdo ra'iisul wasaarihii 19aad ee dalkeen hooyo Soomaaliya ra'iisul wasaare mudane xasan cali khayre waa xilka ra'iisul wasaarnimo loo magacaabay 13 bishii Febraayo sanadkii 2017 xilliga oo uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shaaciyay in ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya loo magacaabay mudane xasan cali khayre kalfadhi ay yeesheen baarlamaanka كودي بشي مارس 2017 أي عد عقلبيات 232 كمدة مدنياش البرلمان كو أنسحيين رئيس الوزراء مدني حسن علي خيري wuxuu isagana 22 bishii Maars ku dhawaaqay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kasiibonaan 29 bishii Maars ayaa baarlamaanka ansixiyay xukuumadda ra'iisul wasaare mudane xasan cali khayre ku dhiirashadii iska casilaadda xilka ra'iisul wasaarenimo ee qaranka 25 bishii Luulyo 2020 ayaa gudoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan war-saxaafadeed uu soo saaray si sharciga dalka baarlamaanka isaga dhawaaqay in 170 xildhibaan ay kalsoonida kala laabteen xukuumaddii ra'iisul wasaare mudane xasan cali khayre
xubnaha golaha wasiirada ayaa dood ka keenay sharci ahaanshaha tilaabadan waxayna ku eedeeyeen gudoomiyaha baarlamaanka inuu ku guuldaraystay ixtiraamidda xeer hoosaadka baarlamaanka. xilligaa foodada dhacayso ra-iisul wasaaraha ayaa ku maqnaa magaalada Dhuusamareeb halkaasi uu kaga qaybgalayay shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kaasoo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka. markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho waxa uu soo saaray qoraal kooban wuxuuna khudbad maqal iyo muuqaal u jeediyay ummadda Soomaaliyeed taasoo uu ku iftiimiyay habka foodada ah ee uu dhacay kulankii kalsooni kala noqoshada xukuumaddiisa taasoo ahayd mid aan waafaqsanayn dastuurka dalka. ra-iisul wasaare mudane xasan cali khayre wuxuu go'aanka iscasilaadda u qaatay inuu dalka u dhimriyo tusaale wanaagsan u noqdo madaxda dalka ee xilliga kuwa mustaqbalka imaan doona iyo weliba in la qaboojiyo xiisadihii kacsanaa ee dalka ka taagnaa. intaa aan ugu gudubno taariikh nololeedkii koobnaa ee musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre haatan aan u gudubno tusaalooyin kooban oo ka mid ah waxqabadkiisii. aan ku bilaabno musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre waa hogaamiye wax bedela wax badanna bedeli kara waxa afka qalaad lagu yiraahdaa transformational leadership. qodobka koobaad dib u habeynta ciidanka qaranka burburkii dowladda ilaahay ka bacdi. musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre waxa uu bedelay hoggaanka dhexe ee ciidamada waxa uu meesha ka saaray tobaneeyo qandaraas oo adeega ciidamada ah oo si musuqmaasuq ah lagu bixiyay. waxa uu u bareeray khatar uu xilkiisa ku waayi karay si uu u dhiso libaaxyadii geeska Afrika. ciidamada xoogga dalka waxaa bari lagu tilmaamay in ay ahaayeen mid ka mid ah ciidamada ugu xooggan qaaradda Afrika, balse waxa ay burbureen 1991kii markii uu dhacay xukunkii militariga. waxaa burburay wax walba oo ciidamadu lahaayeen haba ugu darnaatee haybadoodii. waxaa soo ifbaxay maleeshiya beeleedyo, waxaa dhacay dagaallo sokeeye iyo dagaallo kooxo dhexmaray. muddo rubuc qarni ah kadib markii la dhisay dowladda federaalka ah waxaa la waayay ciidamo difaaca dalka iyo dowladdaba, waana sababta keentay in loo baahdo ciidamo ajnabi ah. AMISOM 10kii sano ee la soo dhaafay oo ay ciidamadan dalka joogeen waxaa ku baxday balaayiin dollar, balse xukuumadihii xilligaa joogay isma weydiin ilaa iyo inta ciidamadan lagu tiirsanaan karo 50 sano, hal qarni mise weligeed. ra-iisul wasaare xasan cali khayre markii ugu horreysay ee uu xafiiska fariistay waxa uu la kulmay taliyayaasha ciidamada. waxaa u caddaatay in aysan jirin cid caddayn karta tirada ciidamada dalka, hubkooda iyo goobaha ay ku kala sugan yihiin. intaas kadib waxa uu ku dhawaaqay hawshii ugu weyneed ee amni, dib u habeynta ciidamada, arrin horey loogu babacdhigi waayey. diiwaanka dowladda waxaa ku jiray ku dhowaad 30,000 oo askari oo militari ah oo dowladdu bixin jirtay mushaarkooda, saadkooda iyo hubkooda, balse markii la tagay goobihii ciidamada tiradaas waa laga waayey. sidaas darteed ayay xukuumaddu ku dhawaaqday diiwaangelin elektarooniga ah. diiwaangelinta casriga ah oo lagu ururinayo xogta askari kasta oo ay la socoto nidaam aqoonsanaya indhaha iyo faraha si looga hortago in 2 jeer la isdiiwaangeliyo. waxa ay qaadatay muddo 7 bilood ah in la soo dhammaystira diiwaangelinta oo lagu samaynayo dhammaan ciidamada xoogga ee kala jooga dalka oo dhan. taliska ciidanka xoogga dalka ayaa markii ugu horreysay aqoonsaday magaca askariga, da'diisa, darajadiisa ciidan, xaaladiisa caafimaad, aagga uu ku qoran yahay, xisaabtiisa bangiyeed, xiriirkiisa rasmiga ah iyo xiriirka ehelkiisa. balse dhanka kale waxaa gadooday qaar ka mid ah ciidamada oo aagaga ka soo baxay, isla markaana waxaa la siyaasadeeyay dib u habeynta ciidamada. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda ee horey qaybta uga ahaa hawshan ayaa dib uga degay kadib markii ay arkeen halista ay yeelan karto. balse ra-iisul wasaaraha ayaa xilligaas ku yiri oraah caan ka dhex noqotay shirarka sarsare ee mas'uuliyiinta dowladda: haddii aan xilkayga ku weynayo xitaa kama laaban doonno in aan ciidan qaran dhisno. goormee ayaan dowlad noqonaynaa haddii aan dhegaysanno siyaasi dan gaar ah ilaashanaya? natiijada tirakoobka waxa ay ahayd halka sartu ay ka qurunsanayd oo musuqmaasuqa ugu weyn uu ka jiray markii la ogaaday ku dhowaad 10,000 oo askari oo aan jirin in ay ku jireen tirada ciidanka.
ku dhowaad 2 milyan oo dollar ayaa la lunsan jiray bil walba maadaama mushaarka ciidanka oo kaash ah bil walba la soo qaadi jiray waxa ay fududeysay in wax la isdaba mariyo dhammaan ciidanku waxa ay helaan mushaarkooda iyadoo aysan jirin cid u dhaxaysa askarta iyo bangiga dhexe ee dawladda mushaarku waxa uu si toos ah ugu soo dhacaa xisaabaadkooda bangiyada raashinka ciidanka waxa uu ahaa caqabad kale oo musuqmaasuq dartii lala fahmi waayay waxa uu ku salaysnaa qaab musuqmaasuq ah oo aan lala xisaabtami karin gebi ahaanba shirkadii qandaraaska ku haysatay ayaa laga hakiyay iyadoo go'aan lagu gaaray in dib loo xayeysiiyo lana kordhiyo shirkadaha ka qayb noqonaya iyadoo lagu salaynayo tirada cusub ee ciidamada waxa ay ahayd caqabad kale oo u bareeray ra'iisul wasaare Kheyre balse uu ku guuleystay hadda waxa la hubiyay in ciidanku helaan raashin tayo leh kuna filan oo aan kala go'in iyada oo aan la xadin lacagta dawladda hoggaanada cusub ciidamadu waxa ay u dhisnaayeen hab maamul ku salaysan kii midowgii Sofiyeeti maadaama uu ciidanku isaga soo dhisay si ay ula jaan qaadaan kan casriga ah ee dunida iminka ka jira ayaa waxa loo wareegay qaab dhismeedka ciidamada NATO oo ah kan ugu casrisan uguna sahlan nidaamyada iminka dunida ka jira ma jirin cid hore ugu dhiiratay wax ka beddelka maamulka dhexe ee ciidamada oo ah halka uu ciidanku ka dhisan yahay waxa si furan loogu tartamay hoggaanada ugu muhiimsan ee ciidanka xooga sida maaliyadda saadka iyo ciidanka waxa ku soo baxay saraakiil dhalinyaro ah oo ka soo baxay kulliyadda ciidamada oo iminka wax weyn ka bedelay maamulka ciidamada kadib markii la aqoonsaday nooca tababar ay u baahan yihiin ciidamada ayaa waxaa la bilaabay tababaro gaar ah oo lagu soo saarayo ciidamo tayo leh tirada ugu badan waxaa diyaarinaya xarunta tababarka ciidanka ee Turkisom halka qaybo kalena ay dhawaan bilaabayaan sida xerada tababarka Ingiriiska waxaa la tirakoobay ciidamada waxaa la hubiyay in ay helaan xuquuqdooda waxaa lala dagaalamay musuqii waxaa loo dhameystiray tababarkooda waxaa loo dhiibay hoggaan aqoon leh kadib waxaa bilowday howlgallo la dareemay in uu ka duwan yahay howlgalladii hore ciidamadu gacan waxa ay kula dagaalamayaan cadowga gacan kalena waxa ay ku caawinayaan shacabka oo madax badani dalka soo mareen haddana ra'iisul wasaare mudan xasan cali khayre hortiis ciidan sida isugu toosan ma jirin laga soo bilaabo burburkii dawladii dhexe ee dalka 1991 taasoo daliil cad kugu filan inuu wax badan kaga duwan yahay siyaasiyiinta intooda ugu badan gareediga wada ah ee hamigooda aanu dhaafsiisnayn ku biilaqaysan dalka iska daa inay samadbixintiisa si daacad ugu shaqeeyaan nasiib darro waxaad arkaysaa madax lagu leeyahay dalka ayaa loo doortay haddana hantida qaranka boobaya qubuurihii ummadda qodanaya marasta ummadda barakicinaya ka dhammaan la qoys iyo qaraabakiil dhulkii danta guud si shakhsi ah u gadanaya kadibna dhaqaalaha malaayiinta dollar ah ee ka sameeyeen xaaraanta ah dalal shisheeye ku maalgashanaya sida dalka Kenya, Rwanda, Tanzania, Mozambique, Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ay kan jabeen oo wax rajo aanay ka lahayn dalkii loo doortay inay isaga wasabta bixiyaan taasoo ah murugo iyo masiibo aad u xanuun badan mideyntii maamulka kala qaybsanaa ee galmudug dhinaca kale waa hogaamiyihii bedelay galmudugtii kala qaybsaneed ilaa markii la dhisay ee maamulka galmudug iyo maamulka ahlusunna wal jamaaca kala ahaa una bedelay maamul hal oo midaysan kadib markuu dhex fariistay muddo 45 cisho ah ama bil iyo bar isagoo ra'iisul wasaarihii dalka ah waqtiga intaa la egna galiyay waliba diiday inuu isaga soo tago dadkan kuwii ka horeeyay ku daaleen balse nasiib wanaag natiijo loo aayo oo dhaxal reeb ah ayuu ka gaaray iba ka bacdi ma hadda iyo abaalka waxa la musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre waa xaqiiq biyo kama dhibcaana in isaga hortiis aanay jirin galmudug hal oo midaysan walow madax bani dalka soo mareen burburkii dawladii ka bacdi ra'iisul wasaare soo dhawow ku soo dhawow galmudug laga sugayay ku soo dhawow galmudug laga jecel yahay ra'iisul wasaare waa galmudugtii ra'iisul wasaare waqtiga badan ku bixisay dib u heshiisiinta taariikhiga ka samaysay bilo aad u fadhisay isu keentay isku maslaxday aan dhihi karno ra'iisul wasaaruhu cadba meelu ka soo qaaday galmudug ra'iisul wasaare galmudug
waxaa kugu taal wax aan dhihi karo Soomaali inteeda kale kuma taal. barnaamijkii isla xisaabtan ee habsami u socodka howlaha dowladda. musharax madaxweyne mudane xasan cali kheyre sida la wada og yahay waa hogaamiyihii keenay barnaamijkii la magac baxay isla xisaabtan ee bedelay xilliga shaqada xafiisyada dowladda la soo galo kuwaasoo markii la doono la iska soo imaan jiray. nasiib darro mas-uuliyiinta ugu sarreysa xafiisyada dowladda waxay caan ku ahaayeen inay wakhtiyada ugu badan iska maqnaadaan shaqaalahana wakhtiyo dambe ayay iska soo laafiyin jireen. nasiib wanaag wuxuu musharax madaxweyne mudane xasan cali kheyre ku bedelay in madax iyo shaqaalaba wakhti horeo la wada go'aamiyey la soo wada galo. wuxuu si joogto ah ugu wada kormeelay wasiirada iyo agaasimayaasha dhammaan wasaaradaha dowladda. isla xisaabtan dhab ahoo joogto ah ayuu dhaqanka dowladda ku soo kordhiyey burburkii dalka ka bacdi. shirarka isbuuclaha ahaa ee golaha xukuumadda ayaa iyana ahaa kuwo lahaa wakhti go'aan oo lasoo wada xaadiro. xubintii kasoo dib dhacday shirka golaha wasiirada muddo ka badan 15 daqiiqo waxaa laga xiran jiray hoolka shirka, dibna waa lagala xisaabtami jiray, taasoo keentay in dhammaan xubnaha golaha xukuumadda joogto u soo xaadiraan wakhtigana ilaaliyaan oo waxa afka qalaad lagu yiraahdo professionalism, punctuality and regularity. taasoo noqotay dhaqan dowladnimada Soomaaliya ee burburkii ka bacdi ku cusub balse loo wada riyaaqay. musharax madaxweyne mudane xasan cali kheyre hortiis xafiisyada dowladda oo wakhti go'aan oo hore madaxda iyo shaqaalaha u soo wada kalahan ma jirin walow madax badan dalka soo mareen, taasoo tilmaan cad u ah in musharax madaxweyne mudane xasan cali kheyre yahay hogaamiyaha la soo tijaabiyey ee dalkeena maanta u baahan yahay, kaasoo leh garashadii, kartidii iyo dhiiranaantii uga soo dhalaali lahaa dalkana si dhab ahoo wanaagsan wax uga bedeli lahaa. soo celintii heybadda xarumaha dowladda ee qaranka. nasiib darro maalintuu xafiiska imaanayay musharax madaxweyne mudane xasan cali kheyre dhismaha xukuumadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha dad ayaa dhex deganaa, maqaayado iyo dukaano ayaa ka dhex furnaa. waxaa ka jiray muuqaal dowladnimada dalka ijaafo iyo fadeexo ama iskaandal ku ahaa. sidaa ayaa madaxda caalamkana u soo booqan jireen, waxaas ayaa indhahooda qaban jireen, taasoo fahamsiinaysay nuuca hoggaan ee aan haysanay iyo meesha liidata ee dowladnimadeennu ay taallay, taasoo wajigabax ku ahayd hoggaanka iyo qarannimada dhammaan ummadana Soomaaliyeed. musharax madaxweyne mudane xasan cali kheyre wuxuu ka wada saaray dadkii deganaa meesha, wuxuu xiray dhammaan goobihii ganacsi ee ka dhex furnaa oo xitaa halis amni ku ahaa shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan golaha wasiirada. wuxuu foolxumadii u bedelay dhismooyin uu ka muuqdo hannaan dowladnimo, xafiisyo wada shaqalabaysan, xukuumadda ku shaqayso iyo weliba beero iyo darjiimooyin bilicdooda isha ku raaxaysato. ka hor imaanshihii muddo kororsigii sharci darrada ahaa ee madaxweynaha. halka ra'iisul wasaarayaasha qaar lagu tilmaamay inay isu arkaan inay xoghayn ka yihiin xafiiska madaxweynaha, ayaa haddana ra'iisul wasaare mudane xasan cali kheyre markii madaxweynihiisii go'aansaday inuu ku dhaqaaqo muddo kororsi sharci darraha wuxuu ku dhiiraday inuu gaashaanka u daruuro, wuxuuna u sheegay in mas'uuliyadda ummaddu ka aamintay wakhtigeeda la dhowro, markii wakhtigii lagu ballamay la gaarana doorasho xor iyo xalaal ah la qabto. musharax madaxweyne mudane xasan cali kheyre aashuun kuma adimine wuxuu khudbad taariikhi ah u jeediyey madaxweynihiisii kooxdii ku gadaabnayd iyo ummadda Soomaaliyeed, isagoo si aan gambasho lahayn u caddeeyey inaysan jirin wax la dhaho muddo kororsi sharci darra. wuxuu sheegay xukunka sharci darro la isaga sii joog inay keenayso khalqal amni iyo mid siyaasadeed, taasoo ugu dambeyn dalka halis u gelin karta dagaal sokeeye iyo dhiig walaal oo daata, isagoo weliba dareensanaa inuu xilka ku weyn karo ama xitaa naftiisa halis ku geli karto maadaama koox halis badnayd madaxweynuhu ku hareersanaayeen. nasiib wanaag dhibaatadii dhacday iyo dhiiggii u daatay muddo kororsiga sharci darrada ahaa bannaanka ayuu ka taagnaa musharax madaxweyne mudane xasan cali kheyre bisaylkiisa hogaamineed dartiis, weliba naftiisa ayuu ummadda miiska u saaray, waa isagoo la mudaharaadii ummaddiisa lagu xabadeeyey oo lagu dili gaaray. u dhimrintii qarankeenna Soomaaliyeed. ugu dambeyn markii si aan sharci ahayn oo dastuurka dalka baalmarsan oo foodo iyo isdhexyaac ah afhayeenkii baarlamaanka xilliga isaga dhawaaqay in ra'iisul wasaare xilka laga qaaday iyadoo aan mooshin laga gudbinin, aan cidi hore u soo akhrinin, laga doodin, isaga inta loo yeero la siinin fursad uu isku difaaco, aan si habsami leh loogu codeynin oo si hufan oo xor iyo xalaal aan loo tirinin, taasoo ah hannaanka sharciga ah ee dalka u yaala
ee haddana musharax madaxweyne mudan xasan cali khayre biseel mugleh muujiye oo sidii la filayay ee dhaqanka ra'iisul wasaarayaasha isaga ka horeeyaba ahaa ee ahaa inuu dagaalamo ma sameyno dalka foodo iyo isqabqabsi iyo khilaaf siyaasadeed oo muddo dheer jiitama howlaha dowladana curyaamay ma gelinini isagaa noqday qofkii waxoo dhan ka wada weynaaday isagaa dalka iyo dadkaba u tanaasulay isagaa khudbadiisii taariikhda gashay ciwaankeedu ahaa inkastoo ogahay ayuu haddana dalkeenna hooyo u turay oo u burburiyey kuwii sharci darrada u bareerayna lama walaaqaline wuxuu noqday mas-uul qarankan qiimo weyn ugu fadhiyo dalkana lahajeclo aad u mug weyni ka hayso sidaa daraaddeeda dalkeenna waqti iyo dhaqaale badanoo ka khasaari lahaa sidaa ugu beekhaamiyey nasiib wanaag ummaddeena soomaaliyeed ee waxgaradka ah arrintaa marna ma iloobi doonaan mana iloobin abaal weyn ayayna arrintaa uga hayaan musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre gabagabo iyo gunaanad mudane xasan cali khayre waa hogaamiye leh 3 sifo hogaamiye qaran aad muhiim ugu ah kuwaasoo kale ah aragti fogaan ama vision inuu leeyahay farsamo ama xirfad inuu leeyahay technical skills la yiraahdo iyo go'aan adayg inuu leeyahay ama uu yahay qof decisive ah quraanka ayaa rasuulkeena waxa lagu yiri salawaatullaahi rabbi wa salaamu alayhi wa shaawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala allah musharax madaxweyne mudan xasan cali khayre waa hogaamiye taariikhda wax qabad ee dhabta dalkeena kule waana hogaamiye ka go'an tahay inuu dalkan si dhab oo xagga wanaag ah wax weyn uga bedelo si marasteena qurbaha daadsan dalkooda hooyo ugu soo wada noqdaan iyagoo nabad bashbash iyo baraari ugu dhex noolaanaya fadlan ka mid noqo ummadda Soomaaliyeed ee wada taageertay dal iyo dibad ee xajaclada dalkooda ka haysa darteed u xushay hogaamiyaha ugu habboon maanta ee taariikhda dahabiga leh ee aan ka soo sheekeynay waa musharax madaxweyne mudane xasan cali khayre dhamaad وأنيقو عبد القادر محمد عثمان وكما قاعدين عبد البقر oo idin leh intaan ka kulmi doono isbuuca soo socda sida iyo nabadgelyo